Assalaamu calaykum. Bartan waa Faa'iido Channel. Fadlan haddii aad daawada ku cusubtay subscribe dheh. Cudurrada qaarkood ayaa laga dhaxlaa jimicsi la'aanta. Qofku haddaan wax dhaqdhaqaaq samayn, wuxuu noqon karaa mid u nugul cudurro badan. Haddaba barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa heerka jimicsi la'aanta ka taagan caalamka oo lagu sameeyay daraasad. Khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujisay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yareyn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la'aanta ama jimicsiga oo ku yaraaday dadka ku nool caalamka. Warbixin ay soo saartay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO ayaa lagu qiyaasayaa in 4 meelood dadka ku nool caalamka oo tiradooda lagu qiyaaso 1.4 bilyan oo ruux aanay samayn jimicsi ku filan. Tiradan ayaa kor u sii kacaysa tan iyo sanadkii 2001. Dhaqdhaqaaq la'aanta ayaa sababtay in dadka ay soo wajahaan xaalado caafimaad darro sida inay qofka ku dhacaan cudurrada wadnaha, nooca labaad ee cudurka macaanka ama sonkorowga, iyo noocyo ka mid ah cudurka kansarka. Dalalka ugu dhaqaalaha badan oo ka mid yahay Ingiriisku ayaanay dadka ku nooli wax dhaqdhaqaaqa intooda badani aanay samayn. Sidoo kale haweenka caalamka ayaa la aqoonsan yahay inay ka jimicsi yar yihiin ragga. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO ayaa macluumaadkan ku saleynaysa xog laga ururiyay ilaa 168 waddan oo dadkooda ay si shakhsi ahaan uga waramayaan xaaladahooda. Khubarada ayaa ogaaday in wadamada dhaqaalahoodu sarreeyo sida Mareykanka iyo Ingiriiska ay shacabkoodu khatar ugu jiraan dhaqdhaqaaq la'aanta ama saameynta ba'an ee ka dhalata heerka jimicsi la'aaneed. Sidoo kale wadamada kale ee safka hore kaga jira liiska jimicsi la'aanta waxaa ka mid ah Jarmalka iyo New Zealand. Sidoo kale Hay'adda Caafimaadka ayaa sheegaysa inay jimicsi la'aantu noqotay dilaaga cusub ee aadamaha, maadaama dad badani ka dhaxleen cudurro aan la daaweyn karin. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay waqtiga uu qofku noolaan karo, waxaana la sheegayaa inuu keenayso cimri degdeg. Haweenka ayaa si guud uga dhaqdhaqaaq yar ragga marka la eegayo dhammaan dalalka lagu sameeyay daraasadda. Hase ahaatee, dalalka ku yaala bariga iyo koonfurta bari ee qaaradda Aasiya ayaa si weyn uga duwan dhanka dhaqdhaqaaqa kaga fiican wadamada kale ee ku yaala koonfurta Aasiya, bartamaha Aasiya, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Haddaba daraasaddani waxay noo caddaynaysaa muhiimadda uu inoo leeyahay jimicsigu, waxaana wanaagsan qofku inuu maalintii ugu yaraan socod amba jimicsi uu sameeyo. Taasina waxay faa'iido u leedahay caafimaadka qofka. Haddaba daawade, haddii aad qormadan ka bogatay, waxaa habboon inaad samayso jimicsi kugu filan maalintiiba. Haddii aad joogtaysana waxaad ka hortegi kartaa xanuuno ka dhasha fadhiga badan amba jimicsi la'aanta.